duubista CD-ga waa shay aad u sahlan runtii. Waxaad tagtaa folderka ay faylasha codka ay kugu jiraan, waxaad samaysaa highlight ku samee inta file ee aad haysato, right click ku dheh mid ka mid a faylashaas, copy to CD ayaad leedahay. qaarkood media playerada kuwii oldiga hore ayaa waxay leeyihiin copy to CD or device. markaad taabato waxaa halkan kaaga muuqda faylashii aad soo xulatay. waxaad halkan ku aragtaa cabirada sizesida ay leeyihiin. haddaba media playerka wuxuu geeska ku leeyahay kuwii hore siiba copy ikhtiyaari copy ah. haddii aad copy taabatana wuu duubayaa CD-ga. markaan copy taabanay wuxuuna weydiinayaa inaan CD cusub gelino. fadlan CD cusub markaad gelisid retry dheh. hadduu CD cusub adoo geliyo retry tiraadna uu kaa diidan, waxaad ogaataa in CD drive-ku cilad waxoogaa ay ku jiraan. marka waxaad geysaa technician-ka dukaamada lagu sameeyo. intaa kadib haddii aad retry taabato oo uu qaatana wuu ku duubayaa CD-gaaga. intaas ayay ku dhan tahay CD duubista. fadlan haddii aad boobsiiyey cabirka faylka aan duubayo inaanu weynaan darteed kusoo celcesho sharaxaadeeda oo dhaqsada ahayd. waxaan ku celiyaa hal mar haddaad doonto, right click ku dheh mid ka mid a faylasha, copy to CD or device taabo. kadib waxaad qaybta sare ee media playerka aad ka fiirsaa copy option, ikhtiyaariga wax lagu koobiyeeyo media playerka ayaa leh. kadib copy haddaad tiraadana CD cusub ayaad gelinaysaa. sidaas ayaanu kugu duumayaa. wabillahi towfiiq. aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo ka faa'iidaysigiinaba.